maalmaha guushu way badan yihiin balse maalmaha guushu kala weyn kala wanaag badanna maalintan aynu ka hadlayno maantana oo maalintii alle korahaaye guusha siiyey muslimiinta jabiyeyna cadowgiyaadka u darnaayay tataarka maalintani maahan maalin looga warrami karo ama lagu soo koobi karo kelmado kooban oo maalin kutub fara badan laga qoray maantana kuliyadaha taariikhda militariga iyo kuwa siyaasadaba lagu barto xeeladihii cajiibka badnaa ee ciidankii muslimiintu adeegsadeen maalintaas muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan uga hadlaynaa dagaalkii mucjisada badnaa ee bilowga u ahaa dhammaadkii tataarka ee caynu jaaluud kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta عيدكم مبارك. qarnigii 7 ee hijriga kuna beegnaa qarnigii 13 ee miilaadiga waxay dunidu ku waabariisatay niman la oran jiray Tatar ama Mongolian nimankani oo ka soo jeeday qabiil reer guuraa ah oo degi jiray galbeedka bari Aasiya kuna hadli jiray luqadda Turkiga ayaa duulaan ugu soo ambabaxay dunida waxay ahaayeen niman tiro ahaan aad u tiro badnaa oo aysan jirin cid tiro isaga caabin karta heer dadkii xilligaasi jiray ay aamineen inay yihiin Yaajuuj iyo Maajuujkii Quraanka lagu sheegay ee soo bixi rabay aakhiru zamaanka waxay ahaayeen sidoo kale niman aad u dagaalyahansan oo aysan jirin cid dagaal isaga caabin karta waxay ahaayeen niman aad u hubaysan oo wata fardo dooniyo iyo qalab dagaal oo aysan jirin cid haysatay xilligaasi Tataarka waxa madax u ahaa ninkii lagu magacaabi jiray Genghis Khan oo loo yaqaanay khaankii weynaa ninkani wuxuu ku taameeyay oo raadinayay inuu samaysto boqortooyo caalamka oo dhan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyiba gumaysata cadowgii Mongoliyiinta waxaa ku soo hogaamiyay dhulka muslimiinta nin shiicada raafidada ahaa wasiirna ka ahaa dawladdii Cabaasiyiinta oo lagu magacaabi jiray Ibn Calqami oo xukun raadis ahaa Tataarka uu horkacay Hulagu Khan oo ahaa wiil waawow u ahaa Genghis Khan waxay soo weerareen dhulkii islaamka 656 hijriga waxayna qabsadeen dhammaan magaalooyinkii ku yaalay Ciraaq iyo Shaam ugu horeyna waxay Tataarku la wareegeen magaalada Baghdad waxayna ku xasuuqeen dad muslimiin ah oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 2 milyan oo qof oo aan kala sooc lahayn rag dumar ciroole iyo caruurba dadkaasi waxa ku jiray khaliifkii ugu dambeeyay dawladdii Cabaasiyiinta al-Mu'tasim billah Baghdad xilligaasi waxay ahayd hoyga xadaaradda dunida waxay ahayd meesha dhaqaalaha iyo ganacsiga ugu badan ee adduunka uu yaalay waxay ahayd caasimadda waxbarashada caalamka oo dhan waxa looga iimaan jiray dhammaan dunida oo dhan si wax looga barto waxay caan ku ahayd culumta diinta iyo kuwa maadiga ahba sida caafimaadka xisaabta turjumaanimada luqadaha falsafada iyo sugaantaba qadar alle waxaasi oo dhan waxaa cagta mariyay Tataarkii waxay wabiga ku dareen kutubtiyaadka u badnayd ee yaalay maktabadaha iyo macaahidda Baghdad waxay kaloo cadowgu kharribeen beerihii dhismayaashii iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha sidoo kale waxay dhulka dhigeen masaajidii waaweynaa ee ay caanka ku ahayd Baghdad Xalab Dimashq Falastiin iyo magaalooyinkii kale ee muslimiinta oo ahaa xilligaasi magaalooyinkii ugu bilicda iyo xadaaradda fiicnaa dunida ayay cagta sii mariyeen Tataarku markii ay burburiyeen magaalooyinkii ugu waaweynaa ee ay lahaayeen muslimiintu dileenna malaayiin muslimiin ah oo haween iyo caruur u badnaa intii nolosha ku hartayna ay u qaybsameen mid baxsad ah iyo mid ay qafaasheen muslimiintiina ay rajo beeleen aamineenna in waxa dhacaya ay tahay calaamad ka mid ah calaamadaha qiyaame ayuu ilaahay ummadii dhibaatada weyn ee haysatay ka soo dhex saaray halyey mideeyay ummadii kala irdhaysnayd dibna ugu beeray rajo qulubtii rajada dhigtay Maxamed ibn Maxamuud oo lagu magacaabo Sayfuddin Qudus waxa uu ahaa salaadiintii xukuntay Masar suldaankii ugu waqtiga yaraa wuxuu tirada dalkaasi qabtay sanadkii 259 miilaadiga isagoo baneeyay jagadaasi sanadkii xigay oo shaqo lagu dilay Sayfuddin muddadaasi aadka u yar wuxuu ka sameeyay dalka Masar isbedel ka dhigay dal iska caabiyay mid ka mid ah weeraradii ugu adkaa ee Tataarku dal muslim ku soo qaadaan xilligaasi suldaan Sayfuddin Qudus markii uu talada qabtayba wuxuu hawl ka bilaabay sidii uu culimada iyo waxgaradka ula tashan lahaa
taasoo keentay in la helo ummad ka midaysan dhan kasta, udub dhexaadna ay u yihiin culimmada diintu. dhambaalkii Holaako iyo curashadii colaadda. Holaako oo ka caraysan weli inay harsan tahay ummad islaam ah oo lafaheeda dhuuxo ku jiro, ayaa wuxuu warqad hanjabaad iyo kibir xambaarsan uu u diray Qudus, isagoo ku amray inuu isa soo dhiibo. waxayna warqadaasi u qornayd sidan: ka socoto boqorkii boqorrada bari iyo galbeedba, khaankii weynaa, waxaan ku bilaabayaa magaca eebbihii fidiyey dhulka kor u qaadayna samada. wuu ogyahay boqor Qudus ee ka soo jeeday jinsiga mamaaligta, kuwaasoo ka baxsaday seefahayaga una baxsaday dhulka ay hadda joogaan waa Masare, kuna nimcaysanaya nimcooyinkeeda, dilayana qof walba boqortooyadooda hoos yimaada. wuu ogyahay boqor Qudus iyo dhammaan amiirada boqortooyadiisu inaan nahay ciidankii alle ee uu u soo diray dhulkiisa. waxaan ka abuuranay caradiisa, wuxuuna nagu salliday kuwa ay caradiisu ku dhacdo. dhulka idinku hareeraysan baana cibro qaadasho idinku filan. nagu soo wareejiyo xukunkiina intaan maradu idinka faydmin aydinna qoomamayn. annagu ma nihin kuwa naxariista, umana turno kan noo baahi sheegta. waadna maqasheen sidaan u qabsannay boqortooyooyinkii dariskiina ahaa, ugana sifaynay dhulkii fasaadka, una dilnay dadka badankiisa. waxaa idin sugnaatay inaad carartaan, annagana waxaana saaran inaan idin cayrsanno. laakiin xaggee u cararaysaan se dhulka idin magan gelinaya? fardahayagu waa kuwo aad u dheereeya, damuunyadayaduna waa kuwo caradoodu aad u dhuuban tahay. warmahayagu waa hillaaca oo kale, wadnayaashayadu waxay u adag yihiin sida buuraha. ciidamadayadu waxay u badan yihiin sida ciidda. qalcad iyo ciidan xoog nagu caabin karana ma jiraan. baryadiinna aad eebbe tuugaysaanna lagama kiina caabin karto, maxaa yeelay waxaad bannaysateen xaaraantii, waxaad jebiseen ballamihii, waxaadna caado ka dhigateen caasinimo iyo dhaga adayg. ku bishaaraysta hoog iyo jab. maanta ayaa laydinku abaalmarinayaa cadaabkii idin duleynayay isweynayntii aad isku weynayseen dhulka gardarro ahaan iyo faasiqiintii aad ahaydeen awgeed. qofkii dalbado dagaalkayaga wuu hoogay wuuna qoomamaynaya, kii magangelyadeenna doonana wuu liibaanay wuuna nabadgelayaa. haddii aad yeeshaan dhammaalkayaga, amarkeennana aad qaadataan, waxaad yeelanaysaan waxaan leennahay, dhib iyo dheefna waan wadaagaynaa. haddii aad diidaanna waxaa idiin sugnaaday halaag. waxaad aaminteen inaan nahay gaalo, annaguna waxaan aaminnay inaad tihiin faajiriin. waxaa nagu kiinsaliday kii go'aaminayay aqtaarta, maamulayeyna koonkan. kiina sharafta leh wuxuu agtayada ka yahay qof hooseeya, tiradiina badanina agteenna aad bay uga yar tahay. ha ku daahinina jawaabta, soona degdega intaanan gaashaan ka xambaaran. waana idiin dignay haddii aan dhammaal idiin soo dirnay, waana idin kicinnay intii aan idiin imaan lahayn idinka hordo ku jira. ogaada inaad tihiin kuwa keliya ee noo haray. salaan korkiina iyo korkayagaba ha ahaato. dhammaalkani aadka u dheeraa, xambaarsanaana erayo handadaad iyo hanjabaad u badnaa, sidoo kalena uu Holaako ku xusayey aayado qur'aan ah oo uu soo daliishanayay, ayuu u soo dhiibay 4 dagaalyahan oo ka mid ahaa dagaalyahanadiisa. waxayna u keeneen Qudus. suldaan Qudus markii uu akhriyey dhammaalkan kuma noqon kadis, oo horeyba way u sugayeen maalintii tataarku albaabada Masar soo qaraaci lahaa. moraalka dadkiisa iyo baqdintii uu ku beeray tataarku qulubtii muslimiinta xilligaasi, ayuu Qudus si uu ugu dhiirigeliyo muslimiinta dagaalka wuxuu amray in qoorta laga jaro dhammaan ergadii dhambaalka waday. inkastoo ay mamnuuc ahayd diin ahaan in ergada la dilo, haddana Qudus ma helin waddo kale oo uu dadka ugu dhiirigelin karo dagaalka. dilka ergadaasina wuxuu dhambaal qayaxan u ahaa in dagaal ay diyaar u yihiin, taasoo kicisay caradii tataarka oo aan weligood arkin qof ku dhiirada inuu wax gaarsiiyo dagaalyahanadooda. ciidankii tataarka oo uu hogaaminayo Katibqa oo ahaa abaandoodihii dhanka dagaalka u qaabilsanaa Holaako, iyo ciidankii muslimiinta oo ay si wada jir u hogaaminayaan amiir Qudus iyo Ruknuddin Baybaris oo ahaa abaandoodihii ciidanka muslimiinta, waxay maalin Jimco ah 25kii Ramadaan 658 hijriga kuna beegnayd Sebtembar 3 1256 miilaadiga isku haleeleen Aynu Jaaluud oo ah dooxo ay ku hareeraysan yihiin buuro oo ku taala deegaanka Nablus ee dhulka Falastiin. labada ciidanba aad ayay u tiro badnaayeen oo waxay ku dhowaayeen 10,000. ciidan kastana wuxuu qabay kalsooni aad u weyn. ciidanka tataarku waxayba la yaabanaayeen in iyaga oo muslimiinta jabkii la ogaa u geystay ay weli jiraan ciidamo muslimiin ah oo is hortaagi kara. dhanka muslimiintana waxaa aad iyo aad u kacsanaa dareenkooda, oo waxay indhahoodu sii eegayeen sidii dadkoodii iyo dalkooda loo baabi'iyey. waxayna u hamuun qabeen dhiigga cadowga, waxayna rajo weyn ku qabeen in Ilaahay guusha siin doono Qudus. ka hor intaanu u soo amabixin dagaalka tataarka, wuxuu dib u habeen ku sameeyey ciidankiisii, isagoo u qaybiyey dhowr kooxood. koox walbana wuxuu ka dhigay 400 oo askari, wuxuuna siiyey darees gaar ah iyo sumad u gaar ah. wuxuuna taliye uga dhigay koox walba
mid ka mid ah hogaamiyayaashiisii si uu tartan uga dhex curiyo kooxahaasi, sidoo kalena uu cabsi ugu beero qulubtii Tataarka. Sidoo kale wuxuu sameeyey koox durbaano tumaysay, kuwaasoo lagu tababaray ciidanka in amar walba oo la siinayo ay durbaanleedaasi qaab cayiman durbaanka u garaacayaan. Tusaale ahaan, marka la leeyahay kooxda midigta hore ha u socoto, waxaa la qaraacayaa durbaan gaar ah, kooxda bidixna sidoo kale, taasoo meesha ka saartay in Tataarku uu garto tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamada muslimiintu intii ay ku sugnaayeen goobta dagaalka. Sidoo kale Qudus wuxuu dejiyey xeelad dagaal oo lagu tiriyo mid aad cajiib u ahayd xilligaasi, noqotayna xeelad ay adeegsadeen hogaamiyayaal badan oo ka dambeeyey xilligiisii, sida Sulaymaan al-Qaanuuni, taasoo ahayd in ciidamada loo qaybiyo 2 kooxood. Kooxda koowaad oo ka koobnayd fardooleydii ugu dagaalyahansanaa ciidanka waxaa laga dhigay kuwa weerarka ugu horeeya qaadaya, halka ciidanka intiisa kale lagu qariyey meel ka dambeysay ishii Caynul Jaaluud oo ah ilbiyood hal dhinac ka furan. Ciidanka weerarka hore qaaday waxaa hogaaminayay Bebaris oo ahaa abaanduulihii ciidanka. Tataarkii markii ay arkeen yaraanta ciidanka Bebaris waxay markiiba weerar ku qaadeen ciidankii muslimiinta. Dagaal muddo dheer socday oo la isla mari waayey, la iskuna riiqday. Kadib ayay ciidankii muslimiintu sidii ballanku ahaa waxay bilaabeen inay sameeyaan dib u gurasho xeelad dagaal, iyagoo aan baqa muujinayn, si aad ahna u dagaalamaya. Balse Tataarkii waxay u qaateen in muslimiintu tabar beeleen, waxayna aad u soo xoojiyeen weerarkoodii, iyagoo ciidankooda oo dhanna weerarka isugu keenay. Markaasi ayuu Qudus wuxuu amar siiyey ciidankiisii keydka ahaa oo uu ku amray inay dagaalka galaan. Hal mar ayay ciidankii muslimiintu dhabarka iyo geesaha ka soo xireen ciidankii cadowga. Ciidankii hore ee dib u gurashada ku jirayna dib ayay u soo rogaal celiyeen, waxaana bilaabmay dagaalkii dhabta ahaa. Waxaana go'doon la geliyey ciidamadii Tataarka oo dhammaan jihooyinkii oo dhan ay ka xireen ciidamadii muslimiintu. Markii uu muddo socday dagaalkuna waxaa ku soo biiray Suldaan Qudus oo markii hore dagaalka kor ka hageeyey, wuxuuna soo galay saaxada isagoo ku celcelinaya erayadii dhaxalgalka noqday ee ahaa waa islaamah. Erayadani ayaa geliyey qulubtii ciidamadii muslimiinta dhiiranaan hor leh, iyagoo sidoo kale kalsooni dheeraada qaaday markii ay arkeen boqorkii oo ka gees dagaalamaya ciidamadiisa. Muddo yar uun kadib waxaa la dilay taliyihii ciidanka Tataarka Katibqa oo ahaa hogaamiye aan weligii laga adkaan. Ciidamadii Tataarku markii ay arkeen madaxii Katibqa waxaa ku beerantay qulubtooda cabsi hor leh, waxayna ka rajo dhigeen inay guul ka gaari karaan, iyagoo bilaabay naflacaari iyo inay bannaystaan waddo ay kula carari karaan naftooda. Waxaana halkaasi ka soo gaartay Tataarkii jabkii ugu weynaa abid ee la gaarsiiyo. Inkastoo boqortooyadoodii ay 2 qarni oo dambe ka sii talinaysay dhulalka Shiinaha, qaybo ka mid ah Aasiya iyo inta badan Yurubta bari oo Ruushka uu ku jiray, haddana waxay noqotay maalintii ugu horeysay ee dunidu ay maqasho waxaa laga adkaaday Tataarkii. Waxay kaloo tani gebi ahaanba hoosta ka xariiqday dhammaadka haysashadii dadka iyo dalka muslimiinta, waxaana laga furtay xoolihii ay dhulka muslimiinta ka biliqaysteen, waxaana laga sii daayey dadkii ay qafaasheen. Waxaana halkaasi ku soo laabmatay safxadda mid ka mid ahayd aafooyinkii ugu darnaa ee soo maray dadka muslimiinta ah.